السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو قصة برودكشن اوفيشال. هدي اي تاي مركي كوغو هوريسي فضلا سبسكرايب سار channel كينا وفرو جنباليلكا سي اي كوسو غاران موقالو xiisa leh. maanta barnaamijkeena guuleystaha nolosha waxa marti inoogu ah ama noogu casuuman ciyaartooyga Sadio Mane oo weerarka uga ciyaara qarankiisa Senegal iyo kooxda Liverpool. maruu ka hadlayay noloshiisa qayb kamid ah ayaa wuxuu ka warramay sababta ugu weyn ee hooyadiis u nacab tahay kubadda cagta. Sadio Mane waxa uu sanadkii 2019 ku guuleystay abaalmarinta ciyaartooyga ugu wanaagsan ee qaaradda Afrika. Sadio Mane ayaa ku dhashay kuna barbaaray tuulo yar oo ku taala waddanka Senegal, wuxuuna sheegay in noloshiisa uu ku soo koray ay ahayd mid adag, laakiin uusan weligiis ka niyad jabin inuu ku riyoodo nolol wanaagsan sidii uu ku noqon lahaa ciyaartooy xirfad leh. isagoo hadlaya ayuu yiri, haddii aad eegto meesha aan ka imid waa tuulo aad u yar oo wax badan ka fog caasimadda Dakar ee Senegal. runtii aad bay noloshu noogu adkayd, laakiin waa iska adduunyo waxaan ku khasbanaa inaan hami fiican yeesho oo aan ku fikiro sidii aan u gaari lahaa heer sare. inkastoo uu hadda ka mid yahay ciyaartooyda ugu fiican caalamka, Mane wuxuu sheegay in hooyadiis ay weligeed nacbayd kubadda cagta. waxay u arki jirtay buu yiri waqtiga oo lagu ciyaaro ama la lumiyo iyo wax aan faa'iido lahayn. sidoo kale fikirka hooyadiis waxa la qabay adeerkiis oo isna qabay in kubaddu ay tahay waxaan macno weyn samaynayn nolosha. weligood ma aysan jeclayn in ciyaarta kubadda cagta, balse waxaan kula dhuuman jiray meelo gaar ah iyo markii aan iskuulka tago waxaan samayn jiray inaan ciyaaro. ciyaartooygan oo sidoo kale gacan weyn siiyay dadka saboolka ah ee reer Senegal, isagoo mashaariic waaweyn ka fuliyay dalkiisa tuulooyinka gaar ahaan uu ka soo jeedo. taniya markii uu noqday ciyaartooy caalami ah, Mane wuxuu bixiyay lacag fara badan oo dalka Senegal ugu deeqay si loogu dhiso isbitaallo ama arrimaha samafalka ee kale. inkastoo uusan jeclayn inuu ka faaloodo arrimaha samafalka ee uu geystay, Sadio Mane ayaa yiri sida tan: ma doonayo inaan ka hadlo arrimaha noocan ah, waxay ila tahay in dadkaasi ay baahi weyn u qabaan. aniguna waxaan jeclahay inaan u qabto wixii karankayga ah. wixii ka dambeeyay markii uu Sadio Mane ku biiray kooxda Liverpool, qof kasta oo reer Senegal ah wuxuu noqday kooxda Liverpool taageere. dadkiisuna way ku faanaan horumarka uu ku talaabsaday Sadio Mane. haddaba daawade, adiga waxa kula habboon maadaama aad leedahay fikrado iyo hadaf nolosha aad ka leedahay inaad u bedesho mid dhab ah oo run u noqda, dad badanna ay arkaan wixii aad shiri ku riyoonaysay. barnaamijkeena guuleystaha noloshu maanta Sadio Mane ayaa inoogu casuubnaa. waad mahadsantihiin.